magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gadow ayaa waxaa maanta lagu qabtay doorashada 11 kamid ah 16 kursi ee taalo gobolkan Gadow. Doorashadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka socday gudiga xalinta khilaafaadka. Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo u kuurgalayay habsami u socodka doorashada ayaa goobjoog u ahaa doorashada qaar kamid ah kuraasta. markii ay doorashada soo idlaatay ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal isagoona ka warbixiyay qaabkii ay doorashadu u qabsoontay waxaana uu dhanka kale ku dhawaaqay natiijada doorashada. gudiga si degdeg ah wuxuu u howlgalay qabashada kuraastii 11 ka ahaa sii deynay daraad iyo shalay kuraasta 11 ka ah oo odayaashii sii diyaarsadeen ergooyinkoodii iyo waxoodii musharaxiintu ay diyaar ku ahaayeen doorashadii aan qabanay kursiga koobaad waxaa ku tartamay Cabdullaahi Abukar Xaaji Cabdullaahi Carab waxaa la tartamay Cabdicasiis Ibraahim Cabdi waxayna ku tartamayeen kursiga hal sagaal ama 119 kursigaasi waxa uu guuleystay Cabdullaahi Abukar Xaaji Cabdullaahi Carab waxaa ku xigay kursiga Hob 65 oo ku tartameen Aadan Ibraahim Isaaq iyo Jibriil Cabdirashiid Xaashi kursigaas waxaa ku guuleystay Jibriil Cabdirashiid Xaashi waxaa ku xigay kursiga Hob 90 waxaa ku tartamay wasiir Maxamed Soomaali iyo Xasan Cabdi Axmed waxa uu guuleystay wasiir Maxamed Soomaali kursiga afraad waxa ku tartamay Nuur Axmed Diiriye kursiga afraad oo ah 117 waxa ku tartamay Nuur Axmed Diiriye iyo Maxamed Barre Cali waxa ku guuleystay Nuur Axmed Diiriye waxa ku xigay kursiga shanaad oo nambarkiisu yahay 102 waxa ku tartamay Cismaan Libaax Ibraahim iyo Mustaf Maamow Geedi waxa ku guuleystay Cismaan Libaax Ibraahim kursiga lixaad waxa ku tartamay Cabdiqaadir Maxamuud Dhaqane kursiga lixaad oo nambarkiisu yahay Hob eber 78 waxa ku tartamay Cabdiqaadir Maxamuud Dhaqane iyo Khadar Imaan Dhaqane waxa ku guuleystay Cabdiqaadir Maxamuud Dhaqane kursiga toddobaad waxa oo nambarkiisu yahay Hob 87 waxa ku tartamay Aamino Xuseen Cali iyo Faadumo Ibraahim Cali waxa ku guuleysatay Aamino Xuseen Cali kursiga sideedaad oo nambarkiisu yahay eber 91 waxa ku tartamay Cabdiqaadir Xuseen Cabdi iyo Cali Guure Maxamed waxa ku guuleystay Cabdiqaadir Xuseen Cabdi kursiga sagaalaad waxa ku tartamay kursiga sagaalaad oo nambarkiisu yahay Hob 116 waxa ku tartamay Duniyo Cusmaan Yuusuf iyo Xaawo Khaliif Maxamed waxa ku guuleystay Duniyo Cusmaan Yuusuf kursiga tobnaad oo nambarkiisu yahay Hob 100 waxa ku tartamay Baalle Ibraahim Cabdi iyo Maxamed Siyaax Aadan waxa ku guuleystay Baalle Ibraahim Cabdi kursiga 11aad ee u dambeeya qabashada maanta doorashada la qabtay waxa weeye Faarax Macalin Bishaar
waana kursiga 216 waxaa ku tartamay xasan aadan xasan waxaa ku guuleystay faarax macalin bishaar halkaas waxaan ku gabagabaynay maanta 11 kursi ee lagu tartamay doorashadooda magaalada Ceelwaaq alxamdulillaah rabbil caalamiin barito hadii ilaahay idmo waxaan dhamaystiri doonaa 5 kursi oo ka dhiman 16 kursi ee ku astaysnaa deegaan doorashada labaad ee Jubbaland Gado Ismaaciil Bashiir Warsame Jubbaland TV Ceelwaaq